السلام عليكم ورحمة الله سود وهذا خياري كلن كلو حيس بدن ومقالدي عافيمات كي علم نفسك مقال كمان تنا waxaan doonayaa inaan ku soo qaadano mowduuc aad muhiim u ah oo caafimaadka carruurta aan uga hadlayno guud ahaan marka laga hadlayo daryeelka carruurta iyo caafimaadkooda waa mid ka mid ah adeegyada ugu muhiimsan ee caafimaadka guud ahaan sababtana maadaama aysan hadli karin oo ay sheegin karin xanuunka ay dareemayaan iyo sidoo kalena maadaama mustaqbalka bulsho walba ay ku taamayso inay koriso oo kobcisana inay yihiin carruurta waxa lagu bixiyaa juhdi dheeraad ah waqti dheeraad ah kharash dheeraad ah sidoo kalena waxaa loogu talagalaa sidii loo fahmi lahaa loo dareemi lahaa ilmaha xanuunsanaya haddaba waxaa jira calaamado khatar ah oo loo baahan yahay inuu waalidku ku baraarugo horeyna uu sii ogaado cilmigeedana uu leeyahay waxaa jira in ilmo kasta uu calaamado dareemo calaamadahaasi waa kuwo iska caadi ah maalan ilmihii caloosha yara xanuunaysa xalay xoogaa wiira oonayay xanuun yar buu dareemayay meel baa yaraya xanuunaysa oo ilaa daalika calaamadahaasi ha noqdaan marka kuwo iska meel dhexaada iyo kuwo inaa kala og tahay hooyadii iyo waalidkii iyo qofkii u dhowaaba in uu ogyahay marka daryeelka carruurtana waxay ka soo bilaabanaysaa guriga oo hooyadii ah iyo aabbihii oo waalidkii hadduu ilmihii la joogo waxaa ku soo xigaya barbaariyihii ama macallinkii bulshadii guud ahaan dhakhtarkii iyo isbitaalkii shaqaalihii joogay iyo guud ahaan dowladda oo adeegyadii iyo boolicigii loogu talagalay in ilmaha lagu daryeelo lagu dadaalo caalamka oo ay markaan ka hadlaynay laakiin waxa aan rabo maanta inaan mawduucan ku soo qaadano oo u dhiiranahay waxa weeye in calaamadahaasi maxay yihiin inaad hooyo ogaato ama waalid oo aad ogaatid calaamadda ugu horeysa waxa weeye kow ilmuhu inaanu awoodin inuu wax cabo ama masalan aanu naasku jaqi karin oo uusan qabsan karin taas waxay yani fariin cad u tahay oo ay muujinaysaa in ilmahan xaalad khatar ah ku jiro loona baahan yahay inaad ku baraarugtid markiiba oo dareenkaagu u soo jeediso calaamadda labaad ilmuhu wax walba oo la siinayo wuu matagayaa maxay muujinaysaa macnaha ilmaha wuu soo matagi karaa mar iyo labo laakiin waxa weeye wax kastoo aad siisoba wuu matagayaa macnaheeda waxay tilmaamaysaa waa calaamad khatar ah hooyo aabbo ilmaha haddaa u agdhowdahay haddii aad calaamaddaas ku aragto feejignaan samee calaamadda saddexaad waxa weeye in ilmuhu gariir ku dhacayo uu leeyahay calaamaddaas yacni gariir ilmaha way iska yareere marar qaybtood inuu yaraa gariir iyo waxay ku aragtay laakiin waxaan sheegaynaa waxa weeye inuusan xakameyn karin jirkiisa oo gariir uu yeelanayo macnaheedu taasna waxay tilmaam u tahay waa calaamad khatara u baahan in lagu baraarugo calaamadda kale afraad ee ugu dambaysa oo aan rabo inaad il gooniha lagu eego waxa weeye in ilmuhu dhulyaal uu yahay ama aan miyir lahaynba hayaay waxaad arkaysaa waalid fara badan oo ag jooga ilmo aan miyir lahayn ama dhulyaal ah oo guriga ku haysta dee ilmahaas hooyada adigaa dayacay macnaha waxaa loo baahan yahay haddii aad aragto ilmahaaga oo xaaladdaas ku jira inaad horey u dhaqaaqdo dhakhtarka kugu horeeya tagto dadaalka juhdiga waqtiga ugu badan aad ku bixiso sidii ilmahaasi aad daryeel ugu heli lahaa caafimaad loona badbaadin lahaa maadaama uu khatar ku jiro waxaan rajaynayaa inaa calaamadahaas aad fahanteen aadna hoos ku qoran doontaan meel gooni ah marka dambe haddii aad aragto ilmo calaamadahaas lehna aad juhdi badan ku bixin doonto sidii aad ilmahaasi loo badbaadin lahaa muuqaalkan waxaan rabaa inaan halkaas kusoo kufiyo inaan waqti badan ka qaatama rabo intaan ku kulmi doono muuqaalkan la mid ah sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh